cabashada ka soo yeeraysa bulshada magaalada Burco dadkan dibadbaxa dhigaya ayaa ka dhawaajiyay amaantii wasiirka kheyraadka biyaha Soomaaliland uu jeediyay muddo laga jooga hal maalin madaxda wakaalada biyaha ee magaalada Burco xilligaas uu wasiirku kormeerayay qaar ka mid ah biyoodka magaalada inay ahayd amaan aan wasiirku ka fiirsanin waxaana tibaaxeen inuu wasiirku kormeeray qaar ka mid ah biyoodyada yaryar ee magaalada qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay biyo la'aanta baahsan ee soo food saartay magaalada Burco markaa waxaan ka sheegaynaa baahida ka taagan biyood ceelashan oo ahaa saddex ceel waa boqolaya 1 iyo boqolaya 2 iyo boqolaya 3 saddexdii ceel laba way fadhidaa waxaan la yaabanaanu garanaynay anaaka maareeyo weegi ceelashan wuxuu yihiin waxaan garanayay inuu ilaaway inuu ka qaranayo wasiirka in isaga laga horjeesto Soomaaliya xukuum maareeyo ayaa baro maareen gooyada Burco ka dhaawiyay ilaa 70 ilaa 70 haween dhammaan waxa ka dhaawin jireen labada ceel inteena kuyuga ku jira marka biyadaanka ma kana haystaa anaga biyadaanki kuma muuqda kuyuga ma kala marka waxaan ka caawinaa biyo maan marka waxaan haynaa qaybtiisa ku dhaawin jirtay marka waxaan labada ceel ma ku dhaawin jirnaa dadka gaadiidka galbeedka labadii ceel la keen way mid baa fariistay in gaadiidkii waxaan dhaamin wax meelaha iskeela dadku way ugu soo qeylinayaan madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa dhulka dadweynaha ee fadhiya ee wasiirada la geeniyo ceelasha shaqeynaya ceelasha kale fadhiyana aan la tusayn madaxweyne eego wax ka qaba baan weena anaga 2004 la sameeyay ila imika ana ka soo aragtaan waa fadhiya jilowkiisi waa ka haawanaya hawaayo waa taa gabadhida baanki ku noqotay aragtaan dadkii oo maraa iyo xawaaye tantii dawladdu wax ka qabato maareeyo wax ka qabto ninka habeen hore hadlaayay eele waxba qabtay biyaha waa ka hodan ceelashii magaalada ugu muhiimsanaa ayaa fadhiya mas'uulka sida kulul loo eedeeyay waa maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa khadka telefoonka kula xiriirnay si aan wax uga weydiino eedeynta loo soo jeediyay iyo baahida biyaha ka taagan magaalada Burco hase yeeshee maareeyaha ayaa ka jawaabay telefoonkiisa gacanta gabadha ka soo yeeraysa gaadiidleyda booyadada magaalada Burco ayaa ku soo dheegnaysa xilli wasiirka kheyraadka biyaha Soomaaliland muddo laga jooga hal maalin uu ka ambabaxay